بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrimaha taagan ee ku saabsan dastuurka waa loo baahan yahay in la dhameystiro ama la saxo laakiin dastuurka hadda doodiisa socoto waa dastuur cusub dastuur la rabo in lagu bedelo dastuurkan hadda haysano weeye dastuurka marka uu cusub yahayna waxa loo maraa process ka duwan kan hadda socda dastuurka markuu cusub yahay waxa la marsiiyaa jidad ka duwan waxa ugu horeeya in khubaro ay ka qayb galaan hawshan in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ururada bulshada iyo dadka stakeholderska ah lagala tashado oo cid walba taladooda la weydiiyo iyo waxay ku darsan karaan waxaan ognahay dastuur marka la sameynayo oo waliba aan u leenahay khibrad dastuuradii hore ama charteradii hore sidii loo develop gareeyay ama looga shaqeeyay laga soo bilaabo xilligii Carta iyo xilligii Imbigaati waxaan ognahay charterkii Carta wuxuu dhalay charterkii ama axdi qarameedkii Imbigaati ayuu dhalay aan ognahay kii Imbigaati inuu qaatay 3 sano in la bilaabo 2002 la dhameystiray 2005 taasoo ay ka qayb galeen ama ay u codeeyeen erga ka kooban 3000 oo qof oo Soomaaliyeed charterkaasi waxa ku yimid TFGD oo lagu doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo officially aan ku qaadanay nidaamka federaaliga ah parliamentary oo systemkeeni dawladnimada uu saas oo ku dhashay ama uu sii socday hadda dastuurkan haysano wuxuu qoraalkiisa ka soo bilowday 2005 wuxuuna dhamaaday 2012 isna wuxuu soo maray marxalado kala duwan in laga talageliyo cid walba oo Soomaaliyeed cid walba waxay isan raali ka ahayna laga saaray markii dambana 2012 looga baxay transitional governmentigi kumeel gaarkii looga baxay oo magaalada Muqdisho la keenay 825 ergo halkaasna ay ugu codeeyeen uuna noqday dastuur kumeel gaar ah dastuurkan kumeel gaarka ah ma dhameystirna waa loo baahan in la dhameystiro mar walba cid walba waxay tiraahdaa waa dhameystirnaa ciidan in la dhameystiro ama la saxo waxa weeye perfect maaha saxiid uu baahan yahay cidii timaadana waxay tiraahdaa waa dhameystirnaa in la dhameystiro waa loo baahan yahay laakiin looma baahna dastuur cusub hadii dastuur cusub aan sameysanayn waxa loo baahan yahay in la marsiiyo process kaas hore oo aan naqaanay in la marsiiyo kan hadda wuxuu ku bilowday in madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu publicly uga hadlay in loo baahan yahay laba xisbi systemkaana in laga guuro waxa ku xigtay in dawlad goboleedyada 2023 bishii May dhamaadkeedii 27 May ay ku soo gabagabeeyeen heshiis ay ku bedelayaan dastuurka waxaan ognahay qodobka koowaad ee heshiiskaas wuxuu qorayaa sida uu ku yimid dastuurkan cusub oo hadda laga shaqeynayo ama aan rabno inaan ku bedelno dastuurka hadda aan haysano oo kumeel gaarka ah dawlad goboleedyada waxa la siiyay 1 sano oo dheeraada dawladda federaalka ahna waxa la siiyay iyadana dastuurkan cusub inay qorato oo hadda maanta laga hadlayo cutubkiisa afraad marka fiiriso cutubka afraad yaa sheegaya inuu dastuurka cusub yahay مثلا cutubka afraad wuxuu ka hadlayaa habka doorashooyinka iyo matalaadda shacabka wuxuu ka hadlayaa nidaamka parliamentary inaan ka guurno oo aan u guurno nidaamka presidentialka waa nidaam cusub oo aan horay anagu aanan u lahayn marka laga hadlayo dimuqraadiyadda
iyo dadku inay codeeyaan oo si xor iyo xalaal ah loo qabto doorashada. marka laga guurayo system marka waa nidaam cusub iyo dastuur cusub. qodobkaana waxa weeye qodobka lagu ilaalinayo dastuurka. dastuurku wuxuu ilaaliyaa dowladnimada, wuxuu ilaaliyaa qarannimada. cutubkaana wuxuu ilaaliyaa dastuurka, maxaa yeelay waa meesha lagu doorto dadka ilaalinaya dastuurka oo ay ugu horeeyaan xildhibaanada, lagu doorto gudoomiyaha baarlamaanka, madaxweynahana lagu doorto. marka waa madaxii yaan oran karaa madaxii dastuurka. dastuurkana waa blueprinting ama lagu hagaayo dowladnimada iyo qarannimada. macnaheedu waxa weeye marka halkaana ka garanaysaan habraac waxaan oran lahaa cutubkan inuu yahay cutub cusub, waana sheegayaa hadda qoraalada hadda lagu qorayo dooda waa cutub cusub oo ka kooban 15 qodob. marka waa sheegay haddii uu yahay dastuur cusub qaabka loo marayo. marka haddii uu dastuur cusub yahay oo aan loo dhammayn maxaa dhici kara? horta marka koowaad annaga systemkeena ama nidaamkeena dowladnimo waa federaal. federaal wuxuu ka kooban yahay dowlad goboleedyo loo baahan yahay in lagala tashado. golaha wadatashiga qaranka ee la qabtay sanadkii la soo dhaafay oo la rabo in lagu sharciyeeyo dastuurkan cusub looma dhammayn oo waxaa ka maqnaa hal dowlad goboleed yaa ka maqnaa. dowlad goboleedka Puntland ayaa ka maqnayd oo qaadacday inay ka qayb gasho, wixii ka soo baxayna si official ah u diiday. marka haddii aan lagala tashan waxaa la rabaa in la ogaado maxaa la jabiyey. ileen nidaam iyo dastuur iyo system yaan leenahay oo sheegaya wax walbaba ama wax walba ay ku qoran yihiin. waxaa la jabiyey qodobada kontonaad, 51aad, 52aad, 53aad iyo 54aad ayaa la jabiyey oo tusaaleynaya wada shaqaynta iyo iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, caddeynaya in lagala tashado. waxaa intaas dheer qodobka 142 oo qeexaya habka iyo mabaadi'da maxaan ku raahdaa federaaliga ah oo dowladda federaalka ay tahay inay kala tashato dowlad goboleedyada wax alla wixii ku saabsan federaalka. waa ognahay dowladda federaalka dastuurka wuxuu qeexayaa inay leedahay 4 arrimood oo aan loogu imaaneyn. waa arrimaha dibadda, waa arrimaha maaliyadda iyo lacagaha, waa arrimaha immigrationka iyo socdaalka iyo jinsiyadaha, iyo arrimaha difaaca. 4taas looguma imaanayo. laakiin inta kale oo ay doorashooyin ka mid tahay waxa weeye wuxuu leeyahay in lagala tashado dowlad goboleedyada. marka haddaan lagala tashan dowlad goboleedyo oo ururada bulshada aan lagala tashan sidee loo keeni karaa dastuur cusub? halkaas khalad weyn ayaa xaqiiqdii ku jira. cutubka naftigiisa oo hadda maanta laga hadlayo ama maalmahan laga hadlayo ee afraad mabaadi'diisa asaasiga ah wuxuu leeyahay si doorasho loo qabto waa in ummadda aan la kala dirin, in la ilaaliyo wadajirkeeda, in midnimadeeda la ilaaliyo ayuu leeyahay. waxaa intaas dheer wuxuu leeyahay in nidaamka doorashooyinka laga ilaaliyo colaadaha iyo qallaasaha iyo wax alla wixii khilaafaad keeni kara. wuxuuba ku dhashayba dastuurkan cusub qallaaso ayuu ku dhashay. maxaa yeelay ururadii bulshada lagama qaybgelin, dowlad goboleedyada lagama qaybgelin, si fiican loogama shaqaynin, isaga naftiisaas khilaafsan, cutubka naftiisaas khilaafsan. meel wuxuu leeyahay siyaasadaha iyo xisbiyada faraha badan uu leeyahay. marna wuxuu leeyahay 2 xisbi. ma aha macnaha wax aad looga fakeray oo khubaro loo dhibay oo muddo laga shaqeynayay oo ummadda talo laga siiyey oo laga ilaaliyay wax alla wixii keeni kara khilaafaad ama dhaawici kara midnimada iyo wadajirka dalka. maxaa dhacaya marka haddii sidaan lagu socdo marka oo hore loo socdo oo la yiraahdo loo joojin maayo, waa la dardara? hadday taas timaado maxaa dhici kara? waxaa dhici kara dadka maqan, dowlad goboleedyada maqan. Somaliland hadda lagama hadlin oo dad wanaagsan oo gobonimo leh oo loo baahan yahay sidii loo keeni lahaa
midnimada loogu soo darayo in laga shaqeeyo iyo dhul wanaagsan khaatumo maalan qoraalku ugu dambeeyay wuxuu sheegayaa in la aqoonsaday oo ay ka mid tahay processka ay ka mid tahay oo madaxweynaheedu halka yimid oo si weyn loo soo dhaweeyay iyada nafteedu waxay u baahan tahay in lagala tashado ururada bulshada culimada haweenka cid walba in lagala tashado intaas oo dhan lama marsiin waxa dhici karaysa marka in iyagoo dhan ay yiraahdaan bacdama annaga wixii aan awal ku heshiinay oo meesha yaalay oo taladeeda aan wax ku lahayn oo dastuurkii annaga aan lahayn ahaa oo dawladda aan ka mid ahayn bacdama laga guuray oo tanna laga tala gelin annaga kuma jirno dawladnimada inay yiraahdaan yaa ka mas'uula marka arintaas waxaa ka mas'uula xildhibaanada waxaa ka mas'uula guddoonka waxaa ka mas'uula madaxweynaha qaranka maxaa yeelay iyagaa loo dhaariyay wadajirka iyo isku haynta ummadda Soomaaliyeed dastuurkan iyagaa ku dhaartay in aysan jabin iyagaa laga rabaa inay ummadda isku hayaan oo ay walaalayaan iyagaa ka mas'uula marka haddii marka saas lagu socdo ogaada dhibka taagan wuxuu yahay dalkan wuxuu ku jiraa chapter 7 weli chapter 7 annagu kamayna bixin haddii annagu aan qaban weyno oo xildhibaanadu qaban waayaan oo guddoonkii la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dawlad goboleedyadu noo qabsoomi waayaan waxaa khasab ah in beesha caalamka ay garbaduub noo qabato waa haddii weli danna laga leeyahay haddii aan danna laga lahayna inna la sii daayo haddiina la sii daayana dee qof walba tuuladiisii iyo xoolihiisu iska raacanaya qarnimadeenna halkaas ayay nooga burburaysaa iyo dawladnimadeenna marka waxaan ku talinayaa dadka mas'uuliyiinta ah arintan dastuurka ah waxaa la rabaa dadka inay isu keentee dadka inay kala dirto looma baahna waxaa loo baahan yahay waqtigan xaadirka ah in laga shaqeeyo arrimaha amniga oo la xoojiyo amnigana la xoojiyo oo niyadda loo dhisay ciidamada qaranka ma aha in laga shaqeeyo wax isku khilaafi karo ama khilaaf keeni kara ama dhibaato keeni kara ama dib noo dhigi kara dawladnimadeenu weligeed waxay ahayd diidiinkuna waxaa laga yaabaa 6 bilood inuu meel taagnaado uusan socon laakiin waa ku soo badbaadnay wadajirkeennii iyo midnimadeennii ma lumin laakiin haddaan orodno oo aan damacno inaan si aan xal lahayn aan u soconno waxaa dhici karaysa inaan kufno ama aan jabnaba marka mas'uuliyiinta qaranka madaxweynaha uu kow ka yahay madaxweynaha dawladda federaalka uu kow ka yahay guddoonka iyo baarlamaankaba inay naga ilaaliyaan dib u dhac iyo dhibaato cadowgeena inay nooga faa'iidaystaan waa salaamantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh